xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta cududiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. Taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa subaxii hore saaka iskugu soo baxay jidadka gudaha magaalada Balligubadle iyagoo ku labisan calanka iyo astaanta xisbiga kulmiye iyagoo gabagabadii iskugu soo biyashubtay koofagaara daafurka ololaha xisbiga kulmiye ee magaalada Balligubadle ayaa waxa kala qayb galay mas'uuliyiin iskugu jira heer qaran, heer gobol iyo heer degmo iyo waxa ugu horeyn xafladaasi ka hadlay gudoomiyaha ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Hawd Siciid Yuusuf Aadan. xafladan ayaa waxa iyaguna hadallo kala duwan ka jeediyay odayaal waxgarad dhalinyaro iyo haween waxayna dhammaantood sheegeen inay taageero hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye iyo murashaxa madaxweynaha xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. waxa iyaguna halkaasi hadallo mahadnaq iyo soo dhaweyn iskugu jira ka jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayihii hore ee dawladda hoose Axmed Maxamed Cabdullaahi Darajo iyo xildhibaan Salebaan Daahir Cabdullaahi Dogox oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka عاصمة هرقيسة. سيدي لو دورنا مشرحة موسى بيحي عبدي ثلاثة دلكا صدحية طبقة بيشا ديسمبر سولو وريغو أينو دورنا صدحية طبقة بيشا نوفمبر ينعود كينا كوب صنو صندوق الله وعدين يو حسبك كلمية ومشرحة وكي هاي موسى بيحي مدحوية كحيقينو وكي هاي سيلعي ساساو بالله نواه وحا عندونا يا مانتين الحقيقيو Balligubadle soo hooyadii halgan kamaaha yaa u astaana halgankaasi oo soo ragii dhiiga u shubay maaha Muuse Biixi Cabdi hadaad Muuse Biixi hal cod ka leexdo Balligubadle iyo agagaarkiisa hawdu ka leexdo maydaan muujinin halgankii aad magaalada Saayla soo maray halgankii iyo hooyadii halgankii aanu sheegnay meelaan muujin. gabagabadii munaasabadaasi waxa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Qadar Xaaji Yuusuf. maanta farxad weyn ayay tahay Balligubadle oo isku raacay kulmiye oo aan ahayn dad bas isugu soo raray aan ahayn Balligubadle khaas ah marka inaguna waxaan codkeena ku aaminayna ninka caruurtiisa iyo maatiisa ina dhex taalo ee la jooga ee aan meelna gelin ee baasaboor jaaniba aan sidan ee mar walba ina la jooga ee ku aaminay wadanka caruurtiisa iyo maalkiisa iyo hantidiisa ku aaminay kaas ay noo balanayna geesta kale wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Qadar Xaaji Yuusuf waxa uu xariga ka jaray xafiisyo cusub oo xisbiga kulmiye ka furtay magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd. Maxamed Siciid Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.